السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتو عنا ونكسنا خير تاوذا نقدي هنا سايميل وبضافة عالم كجوكتان كسر هذا برنامج جارة وكويجي نوا محيد بيذا كاسي أو وريس ونقسيني كورنيل قاسم جامع تربي أو كم ده سراكيش عيدن كبولسكا كورنيل كسودو وربهين تبولسكا دولة ديان كالصومالي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. سودو هذا وربهين تبولسكا دولة ديان كالصومالي ده أدبا ومهتسنتين. waxaan idinka mahad celinayaa waxa weeye sida aadka u wanaagsan oo ilaa heerarka kala duwan oo heerkii loo baahnayo aad bulshada u gaarsiisaan fariimaha booliiska iyo siday dambiyada iskaga ilaaliyaan iyo noocyo waxbarasho kala duwan aad baan taa idinka mahad celinayaa maanta barnaamijkan ku kulmayna wuxuu ahaanayaa waa maxay dambiyada ama dambi waa maxay ama maxaad ka taqaan dambi bulshadeena waxa laga yaabaa inay in badan aanay fariintani ka gaarin warbaahinta ama fagaarayaal loo qabtay oo dambiga lagu baray waxa laga yaabaa marka tan baan maanta waxaan ka dhigaynaa barnaamijka la yiraahdo waa maxay dambi ama maxaad ka taqaanaa dambi qodobka koowaad haddii aan ku bilaabo marka laga eegayo dhanka fikirka dambi waxa la yiraahdaa wax kasta oo isha iyo naftu nacdo oo dib ah dambi baa la yiraahdaa marka labaad marka dhanka shuruucda iyo qawaaniinta laga eegayana dambi waxa la yiraahdaa wixii sharcigu ku amray inaad fuliso oo aad fulin weydo waa dambi wixii sharcigu ka xanibay oo inaad fuliso ku diiday oo aad fulisana waa dambi qaybta saddexaad waxa la yiraahdaa markaan ka eegno dhanka waxyeelada markaan ka eegno wax kasta oo wax u dhimaya nafta iyo maalka xuquuqda dadka xuquuqda dalka iyo nidaamka iyo qawaaniinta dalka u leeyahay wixii wax u dhimaya waxa la yiraahdaa dambi marka labaad wareega qaybtiisa labaad dabeecadaha dambiyada oo kale haddaan sheegno dambiyada ay galaan ama laga galo dadka magaalooyinka ku nool ee ilbaxnimada haysta oo ilbaxa ah ama kuwa waxbartay ama kuwa mataqaanaa bulshooyinka kala duwan la soo dhaqmay dambiyada laga galo ama ay galaan waa nooc gooni ah dambiyada laga galo ama ay galaan dadka xoolo dhaqatada ah ee dhulka miyiga ah ku nool dambiyada ay galaan iyo dambiyada laga galo ayaguna waa kuwa nooc kale oo waxay leeyihiin dabeecad gooni ah dambiyada ay galaan ama laga galo dadka xoolo dhaqata beeraleyda ah ee dhulka beeraleyda ah ku nool dambiyada ay galaan ama laga galana waa ayaguna waa kuwo dabeecad gooniya leh qodobka afraad dambiyada abaabulan ee kooxaha habaysani fuliyaanna waa kuwo dabeecad gooniya leh marka intaas laga gudbo dambiyadu ayagoo qaab dhismeedyo noocaas leh dambiyada ka dhaca dhulka magaalooyinka ah kuwa dhulka tuulooyinka ah dhulka miyiga ah dhulka dambiyada ka dhaca shilalka gaadiidka iyo xadgudubka sharciga wadooyinka oo miyi iyo magaalaba ka dhici karana iyaguna way iskugu jiraan waxaa la yiraahdaa dambiyada argagixisada dambiga argagixisada oo ama miyaha ka dhaco ama magaalaha ka dhace sida arxan la'aanta loo fuliyo oo dambigu iyadoon loo kala aabayeelin qof weyn iyo qof yar dawlad iyo shacab diin iyo aaminaad midku doonaha haystee si iyadoon loo kala aabayeelin loo fuliyo si bilaa arxana ayaa la yiraahdaa dambiyada dabeecadahaasi kale leeyihiin haddii aan ku bilowno daraasadii iyo xog ururintii aan sameynay waxaan soo diyaarinay 68 qodob oo dambi ayaan daraasadii iyo xog ururintii aan sameynay kusoo sameynay inay ka dhici karaan deegaankeena dalka Itoobiyana ay ka soo dhaceen guud ahaan dalka oo dhan markii aanu si guud u bandhigno oo aan u daraasaynay 68 bay hadda marayaan iyadoo sanad walba ama qarni walba ama decade walba 10kii sanaba ay mar wax ku biiraan iyadoo ay sabab u tahay isbedelka cimilada isbedelka bulshada isbedelka dhaqanka isbedelka ilbaxnimada iyo waxyaalaha casriga ah oo adduunka ku soo kordha ayaa waxay sameeyaan inay dambiyadu ama sare u kacaan mar walba sanadka ka dambeeya waxaan gudagalayaa hadda si toos ah waxaan u gudagalayaa noocyada dambiyada qodobkiisa koowaad dambi waxa la yiraahdaa marka koowaad dambiga laga galo sharciga iyo nidaamka asluubta dawliga ah waa dastuurka iyo shuruucda la dejiyay wadanka xuduudaha wax kasta oo dalka sharaftiisa
horumarkiisa siyaasadiisa dhaqankiisa iyo dabeecadihiisa iyo sirtiisa wax u dhimaya waxaa la yiraahdaa dambiyada laga galo asluubta dawliga ah qodobka labaad dambiyada laga galo mashaariicda iyo shirkadaha iyo hay-adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba dambiyada laga galo sidaad ogtahay mashaariicda oo kale marka la leeyahay mashaariicda arrimaha bulshada horumarinta mashaariicda jidadka mashaariicda wadooyinka airportada waxa la yiraahdo infrastructure-ka oo kale dambiyada laga galo ama musuq ha noqoto ama hakrasho ha noqoto ama jabin iyo waxay doonto ha noqoto iyo waxay la gaarsiin midkay doonto ha noqotee dambiyada laga galo mashaariicda shirkadaha iyo hay-adaha horumarinta waxa la yiraahdaa waa dambiyada waaweyn siinta iyo qaadashada laaluushka dambiga qofka bixiya laaluushka waa dambiile qofka qaatana waa dambi qofku hadduu bixiyo waa dambi hadduu qaatana waa dambi laaluushku okay qodobka afraad isticmaalka iyo samaynta iyo faafinta lacagaha been abuurka ah dalka adduun walba wuxuu leeyahay lacag asaga u gooni ah astaantiisa qaranku ay ku taalo horumarkiisa iyo waxyaalaha wadankaas khayraadkiisa ugu muhiimsan ay ku sawiran yihiin lacagtaas ciddii isticmaasha ciddii samaysa ciddii faafisa lacag been abuura oo lacagta loo ekaysiiya ciddii samaysa ama wax ku iibsata waa dambiyada waaweyn bay kamid tahay qodobka shanaad khiyaamada jeegaga boonooyinka lacagaha lagu bixiyo iyo shaabadaha dawliga ah iyo kuwa shirkadaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ciddii si khiyaamaha u isticmaasha oo aan loogu talagelin waxay kamid tahay dambiyaday kamid tahay waa qodob dambiyada kamid ah amaano daro ama amaano lunsi waa nooc khiyaamada kamid ah qofka wixii lagu amaanaystay oo amaan ahaan uu hayay inuu lunsado ama ciddii amaanadeeda lahayd aan la gaarsiinin waa dambi isticmaalka awood mas-uuliyadeed oo aanu sharci ahayn waa qodob dambiga waa qodobka 7 isticmaalka awood mas-uuliyadeed oo aan sharci ahayn waa macnaha mas-uuliyad aadan lahayn inaad isticmaasho waa dambi isku dayga iyo dhibaato gaarsiinta qalabka gaadiidka qalabka isgaarsiinta la isticmaalayo waxaa jira isgaarsiintu waa laba nooc midna waa mid dadka dhanka wada dhaxayso oo serverka dawliga ah oo dad walba cid walba ay isticmaalayso oo fariintiisa kusoo dhacayso fariintiisa gudbinaya iyo teleefoonadan gacanta iyo waxaan meelahan goonida yaallo oo sida shakhsiyaadka loo leeyahay no wax kasta oo isgaarsiina in waxyeello la gaarsiiyo oo uu shaqada joojiyo waa dambi isku dayga iyo dhibaato gaarsiinta matoorada iyo laymanka quwadda korontada laga dhaliyo waa dambi quwadda korontada mar aan isticmaalayno ummadoo dhan baa isticmaalaysa cuntada lagu karsanaya iftiinkii baa laga dhiganaya isgaarsiintii baa ku shaqaynaysa adeegyadii iyo dambiilayaashu meesha ku dhuuman lahayn baa lagu iftiiminaya saas darteed haddii waxyeello inta la gaarsiiyo ay adeega joojiyaan qofkaasi waa dambi wuxuu galay dambiyada waaweyn gudahoodan weli ku jirnaayo ulakac dil bareer ah qofkii fuliya wuxuu dilayo qof buu noqon karaa xawayaan buu noqon karaa xoolo buu noqon karaa wax noolo ah ciddii dila oo noolayaasha shay aan loo baahnayn oo noolaa ma jiro ama shay aan xuquuq lahayn oo noolaa ma jiro dadkuna waa kasii fadilan yahay marka dil bareer ah ciddii fulisa waa dembi dembiyada waaweyn buu kamid yahay dembiga 11aad dil kama ah dilka kama ah baa inta badan waxaa la yiraahdaa maxaa loo jeedaa dilka kama ah dil kama ah waxa weeye waa dembi kas ah oo bareer qofku u galo iyo dembi kama ah qodob saddexaad oo waxaa soo raaca la yiraahdo kas kama marka marba waxyeelada uu la yimaada iyo marba weynanka uu leeyahay lagu cabiraa laakiin marka ugu horeysa dembiyadu waa mid kas ah iyo mid kama ah iyo mid kas kama ah midka bareerka ah oo kaska waxa la yiraahdaa dembiga ula kac loo fuliyo ama dil ha ahaado ama nabar ha ahaado ama ficil kale oo la qaado ha noqdee dembi qofku ku talagal u fuliyo ayaa la yiraahdaa dembiga bareerka ah dembiga kama ah waxa la yiraahdaa qofku wax aanu isagoon ku talagelin isagoon ku qorshaysanin fal ka dhaca dembiga uu galo kas bareera laakiin waxa la yiraahdaa dembi kas ah oo kama waxa la yiraahdaa in general marka la soo duudubo waxa la yiraahdaa nin baa wuxuu raadsaday ugaarta inuu disho ayuu qorshaystay xabad buu riday xabadii ugaartii way dhaaftay waxa ku dhacday qof ka shisheeya asagu wuxuu qorshihiisu ahaa ugaarta inuu disho laakiin waxay dishay xabadii qof ka shisheeya dembigaas waxa la yiraahdaa dembi kas kama ah asagu ugaartii u jeeday laakiin qof bay u dhaaftay
marka haddii aan halkaa kasii wado liistiga dembiyadii aan ka hadlaynay sidii hore oo inoogu taxnaydba dembiyada aanu sanadkan sharaxayno oo iminka daraasadan aan ku xaqiijinay waxaa kamid ah dilka ku yimaada isdifaaca qofku isagoo isdifaacaya haddii uu dil ku yimaado dil sameeyo ama dembi galo waxaa la yidhaahdaa qofku si sharciya ayuu isku difaac naf baa qof naftiisa iyo maalkiisa soo weeraray kadibna isagoo iska difaacaya ayuu dembi galay ayaa la yidhaahdaa qodobka saddexaad soo raaca marka waxaasoo dhan kama ayay raacaan dhaawicidda iyo waxaasa qodobka 16aad waxaa la yidhaahdaa isku dayga marka ugu horeysa waxaa la yidhaahdaa qodobka ilmaha in layska soo rido ilmo nool oo caloosha ku jira in layska soo rido oo isagoo ama shankiisii dhamaystay ama aan shankiisii dhamaysan in la soo rido waa dembi lamid ah dembiga dilka bareerka ah qodobka 17aad waxa weeye qof la dhalay oo ilmaha oo nool oo caafimaadkiisa iyo noloshiisa dhameystiran tahay in la tuuro oo la xooro meel cidlaa lagu tuuro oo aan noloshiisii la daryeelin wixii xuquuqdii u lahaa oo dhan iyadoo lagu gafay inaan la siinin oo la xooro ilmahaas waa dembi qodobka 18aad qasabku kaxaysiga haweenka in la qasbo guurka ama la noolaanshaha ama dhaqanka af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa magacyo badan baa lagu yiraahdaa qasab baa lagu yiraahdaa dhabar garaac baa lagu yiraahdaa in dumarka ama guurkooda ama la jiritaankooda in la qasbo waa dembi kufsiga iyo faraxumeynta haweenka waa qodobka 19aad oo dembiga deegaankeena waayahan dambe iyadoo nolosha casriga iyo dhaqamada casriga ah inagu soo fiiray iyo waxyaalahan information technology-ga la yiraahdo dambiyada ay sababta u yihiin inay wadanka ku soo kordhaan ayagoo uu kamid yahay kufsigu laba nooc weeyaan kufsiga ragga loo geysto sanadkan meelo badan baa laga diiwaan galiyay kulli dadku waxay oranayaan arinta maxaa looga jeedaa laakiin waa wax dhacay kufsiga haweenka waa dembi dumarku kufsigu waa labo gabadha iyadoo aan guurkii gaarin oo bikrad ah la kufsado kadibna bikradeeda si aan sharci ahayn lagu jabiyana waa dembi labaad oo kufsiga soo hoosgelaya qodobka 20aad waxa weeye tuugada guryaha jabisa guri aanu lahayn qof waxa la yiraahdaa bini aadamka waxa ugu fulaysan qofka nolosha ka baqa oo inuu shaqeysto oo xoogiisa iyo awoodiisu ay u dirto qof kale wuxuu shaqeystay inuu qaato oo xoog ku qaato ama gurigiisa iyo meesha ku xafitay inuu jabiyo marka tuugada guryaha jabisa waa dembi tuugada jeebsiibka waa dembi sirta iyo khiyaamada qofka inta aqligiisa indhasarcaad ama shoocac lagu furo hantidiisa in la qaato oo la khiyaamo oo khiyaamo loo geysto ama hantidiisa ama naftiisa ama maalkiisa waa dembiyada waaweyn ayay kamid tahay xatooyada dhaca baabuurta iyo afduubka dhaca baabuurta waa dembi qalabka oo gaarigiyo halka yaala in gudaha laga furfurto oo qalabkiisii la qaato waa dembi xatooyada xoolaha nool waa waxyaalaha ugu faraha badan oo deegaankeena dhibaatada ugu faraha badan keenta waa laba qodob isku dhaca qabaa'ilada oo arrimo dhaqan arrimo dhul xuduudeed arrimo deegaameed iyo dhaca xoolaha ku salaysan ayaa dhibaatooyinka ugu faraha badan deegaankeena ka sameeya marka waxaad moodaa meelaha qaarkood dadkeenu inaanay dembi u aragba in xoolaha la dhaco special geela oo kale in la dhaco xoolaha yaryar oo aan akshinta ahayn in la dhaco dadkeena dadka qaar baa waxay u arkaan dhaqan xumo oo ariga iyo looda iyo dameeraha iyo in la dhaco waxay yiraahdaan qof liito weeye qofka taa ficilka sameeya laakiin hamiga geela lagu dhaco oo dhan Soomaalida dhaqankeeda uu ku jira dambiyada ugu faraha badan meesha ka yimaadaan waa meelahaas oo kale qofku hadii uu qabto qabsashada iyo haynta iyo qarinta waxyaalaha la soo xaday ee tuugadu ay soo xadaan waa qodobka 29aad in qofku hayo ama u qariyo ama la saaxiibo oo tuugada u hayo waa dembi dhaca iyo boobka habaysan ee kooxuhu fuliyaan example markaan halkaasi kala sii faahfaahiyo oo kale meelaha bangiyada xawaaladaha shirkadaha meelaha qasnadahoodu yaalaan oo kale tuugo ama dad xoog badan oo hub isticmaalaya ama xoogooda isticmaalaya ama qaab kale isticmaalaya intay isa soo abaabulaan
inay dhac iyo boob ku sameeyaan oo kale waa dembiyada waaweyn, dembiyaday ka mid tahay. dhaca iyo boobka hubka lagu fuliyo waa sida xoolaha oo kale, qof hanti u leeyahay inta hub la soo qaato oo asagii ama la dhaawaco ama la dilo in la qaato waa dembi. fariintan waxaan sidaa u leenahay, waxaan isleeyahay dadkeenu waxyaala weli waxa dembi yahay lagalama hadlin. marka waxaan doonayaa inaan weliba maadadan aan ku celcelino waxyaala badan oo ay dadku si fudud ugu tallaabsadaan ama si fudud ugu dhaqaaqaan. qofku inuu isku dayo ama ku hamiyo inuu wax dhaco waa dembi. inuu ku hamiyo waxbaan soo dhacayaa, waxbaan soo qaadanaya, waxbaan boobaya, inuu ku hamiyo oo hamigiisaba ka dhigo waa dembi. isku dayga ama gubista saraca beeraha oo kale in la gubo waa dembiyada waaweyn oo nolosha iyo hantida iyo in kastaba iyo bay'adaba saameynta ku yeelanaya, deegaankaba saameynta ku yeelanaya. in la isku dayo in la gubo, adag intuu dabka ku qabtay baa laga gaaray, uu gubay already, uu isku dayay laakiin ma wada guban. gubista iyo waxyeello gaarsiinta saraca beeraha in la gubo waa dembiyada waaweyn. hantida ama dawladdu ha lahaato ama shakhsiyaadku ha lahaadaane, hantida dalka waxtarka u leh oo dadku isticmaalayaan oo nolosha iyo awoodda bulshada ku tiirsan in la gubo ama waxyeello la gaarsiiyana waa dembi. okay, waxyeello gaarsiinta hantidu way kala jirtaa. hantidu mid shakhsiyaad iyo mid dawladeedba. midda shaqsigana ummadda way ka faa'iideysanaysaa, midda dawladdana ummadda looga faa'iideynaya iyo bulshada looga faa'iideynaya. marka cidda waxyeello gaarsiisa gaadiidka oo kale ku jira, cagafyada ku jira, buundooyinka oo kale ku jira, eerborada oo kale ku jira, wadooyinka oo kale ku jira. marka la leeyahay hantida guud oo ummaddu wada leedahay oo haddii dhibaato gaarto ummadda oo dhan iyo dalka oo dhan saameynta ku yeelanaysa ama mid shakhsiyan saameynta ku yeelanaysa waxyeelada la gaarsiiyey waa dembiyada waaweyn ayay ka mid tahay. sidaas darteed hadda waxaan wareegga labaad usoo jeensanaynaa inaynu wacyigelinta aan ku soo darno inaan marka hore horta dembiyada barno ummadda shacabkeena, in dadka bulshadeena in dembi iyo wuxuu yahay la baro. marka labaad cidda dembiila noqon karta iyo ficilada dembiilanimada keento oo dhan inaan barno oo sidan hadda aan miidiyada u isticmaalayno oo kale halka aan ka sii wadno. haddaan tusaale usoo qaato waxyaalaha dadkeenu aanay dembi weyn u arag waxaa ka mid ah gubista kaymaha. waa qodobka 27aad oo sharaxaada dembiyada nooceenan ka mid ah. kaymaha in la gubo, dhuxul in dhirta laga sameeyo, dhulka in la xaalufiyo, kadibna ay roobabka ku yaraadaan, abaaruhuna bataan. waxay ka mid tahay noocyada dembiyada deegaanka oo dhan iyo dalka oo dhan laga galo. dhulkii baa xaalufaya, xoolihii baa cunto waayaya, roobkii baa yaraanaya, kadibna nabaadkii soo bixi yaraanaya yaa imanaya. noloshu waxay noqonaysaa wax ku kooban hal shakhsi, hal geedna noloshiisa wax sii wadi karaya maaha. dhuxushu ka gubtay waa wax adigu maalmo ku kooban. ummad dhan baana waxay u waayeysaa waxtarkii dhulka u waayeysa. okay, haddaan halkaa ka sii wadno dembiyada waxaa ka mid ah laymanka isgaarsiinta sharci darrada. dadku laynka ama telefoonka ama mataqaanaa khadadka dawladdu og tahay ama bulshadu og tahay oo sharciga oo dalku isticmaalayo waxaan ahayn in la feer abuuro oo la keensado waa dembi. okay, been abuurka iyo ekaysiinta qalabyada shirkaduhu sameeyaan sida mobaylada, kombiyuutarada, wax kasta oo ay kambaniyadu samaystaan si been abuur ah in inta loo soo sameeyo lambarada iyo magacyada laga bedelo qofku anaa samaystay uu yiraahdo waa dembi. saraca beeraha oo iminka wax soo saarka oo kale in la been abuuro oo mid forgery la sameeyo. hadda waxyaalo badan oo aan maqalnay baa jira. bariis waxaan maqalnay ka samaysan dhir oo midkii sida dabiiciga ah u baxay waxaan adigu hay'adda censorshipka iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda beeraha annagoo la kaashanayna daraasada waan samayn doonaa. laakiin wuu jiraa baa la yiri bariis bac ka samaysan. adigu weli wadankeena ma soo gelin laakiin caalamka hadda wuu ka jiraa baa la yiri. astaan ganacsi oo qof leeyahay ama shirkad leedahay ama company leeyahay qof kale inuu qaato oo asagoo company-ga isu ekaysiinaya oo astaantii isticmaalaya inuu isticmaalo waa dembi. haynta iyo gudbinta iyo ka ganacsiga hantida sharcigu diiday waxyaalaha sharci darrada in laga ganacsado, in la haysto, in la gudbiyo, in wadanka la soo geliyo waa sida kontrabanka iyo waxyaalaha la midka ah oo kale. waa haynta, gudbinta, ka ganacsiga waxyaalaha aan sharcigu wadanka ogolayn in la soo geliyo waa dembi. kontrabanku waa dembi. kontrabanku
saddex waxyaalood buu ummadda wax u yeelaa wadanka wax soo saarkiisa inuu qiimo jabiyo oo sixir barar ku keeno kontrabanku wuu sababaa dadka wadankaas ku nool inay wax la soo baxaan oo ay iyagu noloshooda isticmaalaan wadankooda kala soo baxaan inuu ka hor istaagana wuu sababaa ganacsi qiimaha iyo wadanka ganacsigiisa inuu fawdo ku abuuro oo qiimayaal kacsan qiimayaal kulul ummadda wax looga iibiyana kontrabanku intaasoo systemba uu sabab u yahay marka kontrabanku waxyaalaha wadamada curyaamiya dhaqaalahooda iyo noloshooda iyo horumarkooda ayuu ka mid yahay qodobka 44 haysashada iyo ka ganacsiga hubka sharci darrada hubka inaad haysato waa sharci darro inaad ka ganacsato waa sharci darro laakiin waa lagu sharciyeyn karaa haddaad sabab lagu qanca keento booliiska iyo hay-adaha amniga qaabilsan hubka qofka waa haysan karaa laakiin asagoo aan sharci ahayn inaad haysato ama aad ka ganacsato waa dembi okay samaynta iyo qarinta iyo gudbinta mukhaadaraadka halista ah ee dadku isticmaalo maandooriyaha waxa la yiraahdo inaad ka ganacsato inaad qarsato inaad wadanka dhexdiisa ku dhaqdhaqaajiso inaad isticmaasho intaba waa dembi okay sidoo kale isticmaalka muqaadaraadka waa dembi inaad isticmaasho waa dembi muqaadaraadku intaasoo nooc buu kala baxayaa muqaadaraadku ama waxa maandooriyaha la yiraahdaa kow caafimaadka ummadda wax buu yeelaa caqliga iyo maskaxda wax buu yeelaa fikirka ummadda oo dhan markii dadkeeda dhalinyarada ama jiilka soo koraya ama dadka waxtarka u leh ummadda ay isticmaalaana caqli burbur baa ummadda ku dhaca qaybo kamid ah marka dadku halista ugu faraha badan dhaqaaluhu burburiya nabadgelyo darro ayuu wadanka ka abuurayo dadku markay maandooriyaha isticmaalaan waxay sameeyaan dambiyada si bareera ayay u sameeyaan macangagiin bay noqdaan marka dhibaatooyin fara badan buu dambiye u leeyahay dambiyada laga galo caafimaadka bulshada markaan idin leenahay waa aad bay u fara badan yihiin nadaafadda baa kamid ah cuntooyinka baa kamid ah cuntooyinka dhacay baa kamid ah daawooyinka dhacay baa kamid ah goobaha lagu ganacsanayo ama bulshadu iskugu imaanayso oo nadaafadoodu liidata baa kamid ah dariiqyada baa kamid ah xaafadaha baa kamid ah weelasha la isticmaalayo ama weelasha dadka wax lagaga iibinayo isticmaalayaan ayaa kamid ah qodobka 49 argagixisada dambiyada argagixisada waxaa la yiraahdaa waa heer caalam horta argagixiso waa dambiyada argagixisanimo iyo argagixisadu waxay ku kala duwan yihiin argagixisanimo waxa weeye waa shirkadaha waaweyn oo alqaacida al-shabaab al-maxay al-ISIS ayaa waxay u abaabulan yihiin dhaqaalahooda iyo hamigooda iyo fikirkooda iyo qorshahoodu wuxuu ku salaysan yahay in ummadda la dhibo hantideeda la burburiyo nafteeda biqayri sharci lagu dilo si aan sharci ahayn loo dilo si aan aabayeel lahayn qofka weyn qofka yar qofka muhiimka ah oo dowladda ummadda muhiimka ah oo xilka haya qofka caqliga leh qofka macalinka intaba si isku mid ah oo bareera ayay u dilayaan si dadban iyo si argagixisana waxa weeye waa fal laga naxo qof la imanaya oo fulinaya ficil laga naxo oo ummadda iyo dalka iyo nolosha iyo caafimaadka iyo jiritaanka iyo midnimada iyo xasiloonida ummadaba argagax ku keenaya oo ummadda oo dhan laga naxdo waa argagixisanimada qodobka ugu muhiimsan oo maanta rabo inaan aad u faahfaahiyo waxa weeye dambiyada saxaafaddu waqtiba waqtiga ka dambeeya ayagoo isa soo bedelaya ayay waxay bulshadeena ama bulshada caalamka ku hayaan dhibaatooyin aad u fara badan saxaafadda waxa weeye horta inta badan waxyaalaha saameynta faraha badan nagu keena waa dadka youtuberada ah dadka wararka kala duwan youtube-ka soo geliya dadka facebook-ga isticmaala wararka meelahan bulshada layska arko waxyaalahan la yiraahdo social media-da oo dhan ama saxaafadda wararka been abuurka fidiya idaacadahana way jiraan kuwa badan oo idaacada oo been abuur sameeyana way jiraan ayagoo ka duulahaya shakhsi nacayb ama mucaaradnimo ayagoo ka duulahaya kuwa fara badan oo been abuur u sameeya baa jira laakiin ama lacag abuur dhaqaale abuur kuwa u sameynaya baa jira ayaa jira oo marka saxaafadda horta bulshadeena waxaan fariinta u gudbinayaa inay aad uga digtoonaadaan inay aaminaan ama xaqiiqo moodaan waxyaalaha fara badan oo ay youtube-yada iyo facebook-yada iyo waxyaalahaas la soo dhigo
sababo kala duwan ayaa sababo ah bulshadeena tii horena waan kala hadalnay marka saxaafaddu iminka waxay noqotay nooc ganacsi ah iyadoon loo aabayeelaynin ummaddu wax yeelayaa sharcigii baad jabisay qof baad wax yeelaysaa cadiifad asagoo ku shaqeynaya oo kale nooc cadiifadeed oo kale inuu yiraahdo dhibaatooyin noocaas ah hebel baa sidaa sameeyay hebel baa sameeyay halka waxaas ka dhacay waa been wadanku abni buu leeyahay hay'ada abni buu leeyahay hay'ada saxaafadeed buu leeyahay oo wixii dhaca ama wixii dhici doona ummadda uga diga kuwaasi waa kuwa wadaniga oo sida daacadda u shaqeynaya idaacadda SRT oo kale ummadeena hadii daadad soo socdaan haday dabaylo soo socdaan hadii isku dhac qabiil meesha ka jira waad aragtay xafiisyada nabadgelyada xafiisyada booliska way sheegaan halka dhibaatadaas ka dhacday waxa sabab u ah waxa xaqiiqda ku salaysan waa waxaas halaamaha dawladda oo amniga u xilsaaran waxay sheegaan laakiin ninka Minnesota jooga ama Scandinavianka wadanka jooga warka been abuurka YouTube ka galiyo ummadeena qaar baa rumeeya kadibna maalinta iyadoo la isla dhex wada arkaysa marka anigu bulshadeena taas waxaan ku soo gaabinayaa inay sidaa kaga gudbaan xadgudubka sharciga haddaan idhaahdo oo kale amniga wadooyinka baa jira dadka leysin la'aanta baabuurta ku wada dadka gaariga aan taargada lahayn wadanka soo gelinaya dadka ganacsiga sharci darrada wadankeena garinaya dadka macdanta iyo khayraadka wadankeena dibadda uga saaraya ganacsiga sharci darrada uga saaraya dadkaas oo dhan waa dambi waxaas oo dhan waa dambi khayraadka dabiiciga ah khayraadka wadanku leeyahay ama macdan ha noqdo ama hantida kala duwan ama xawayaanka ha noqdo kala duwan ugaarta goodirka baciidka shabeelka wax badan baan qaban waxa soo dhan in laga ganacsado oo si sharci darro wadanka looga saaro ama la qabto ama la dilo waa sharci waa dambi okay dambiyada laga galo arrimaha guurka oo kale guurka in la isku qasbo qof aan guurkaaga u baahnayn in la dhabar garaaco waa dambiyada guurka laga galo qofka in la yiraahdo gabadhan isku gayaan manihin ama kufkayga maaha wiilkan isku gayaan manihin ama kufkayga maaha kadibna reer dhan sida lagu burburiyo arrintaas oo kale anagu dambi ahaan baan u diiwaan gelinay waana dambi qodobada halista wadanka ku keenaya oo aad halista waxa kamid ah bixinta iyo xadista sirta computer ha noqoto systemka bangiyada accountiyada shirkadaha lacagaha xawila ama systemyada shirkadaha ama database-ka shaqaalaha oo kale sirta ama arkiifyada oo kale protocolka in la bixiyo dambiyada waaweyn oo aad looga diyaar garoobo cidii gashana ay wadanku qaran dumiska kamid ka tahay ayaa weeyaan